إلهي مركا وحكوير إني كتبت هذا الباء يقهر مريو وإن كي الهوى معنى هذا لكن هذا الباء قول باء يقهر مريو نفع الدونك كتبتي إن أنا دب أسوع علينين باهري أن أقري مركا هذا بإله يوم هذا يرد شاطعي نجد قارسي ولا لهن الدونك أن وكأنمد نرش وناسين كجرنو نغشاكي دوك إلهي سود جاية فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اسكسو سعوتيو إلهي هذا نوحك هذلي بالتفصيل وهذلي فاهن وهذلي قصة النبي كهريس عليه الصلاة والسلام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إن إلهي سبحانه وتعالى قريوين كي هوري ودم مدي هورا إنتان نبي يبعثي سي لقارن إن إلهي لبا رسول صوتري هذا مid saddexaad ugu daray saddex rasuul iyagoo inay u tageen hase yeeshee sida kuwan ay kufriyeen bay kuwaasina ay u kufriyeen laakiin qisadu qisa cajiib leh ayay wadataayo ilaahay wuxuu ka hadlay mid aan rasuul ahayn oo isaga loo waxyoonin in uu dacwadii rususha u qumay oo nimankii tuuladii rususha ku kufriyay ee la dooday ee diiday oo isaguna dhinaca uga soo baxay wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a muxuu yiri qaala ya qawmi ittabi'u almursaliin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun halkaana waxay daliil u tahay inay dacwadu أي عام تهاي لكل الناس والله باشان واسكف عنان لهي بال كان الكروي قرن لهي لكن إذا نهور كلي كنت اسكلاف نفنا هاي ما هدمين ور هدمين كوا كذا ما يميها فلاش هذا اسكدمين اسكداي خلاصة الكلام إلهي سبحانه وتعالى وحنوش هاي لنا رسول هاي oo isagu isxilqaamay oo dacwadii u qumay oo tuuladii ku firisay intuu u yimid waana kamid yahay oo reerku kamid yahay ya qawmku ittabi'u al-mursalin rusushan ra'a khayr baydin wadaan ra'a ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun waxaad raacdaan huwa aan waxa ay idin sheegayaan khayrkan mishqaayad idin ku weydiisanayeen waxba idin ka doonaynin ilaahay dartiisa idin wacdinaya kuwa raaca waliba markaas uu isxadeeyo aniga soma wama liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un maxaa iga hortaagan oo ii diiday inaan anigu rabbigaygii abuuray ee aanu jirin haysiiyay inaan caabudo attakhidhu min dunihi alaha ma doqon baanahay markaan anigu ilaahay kale oo aan shaqo baana ku lahayn oo dadku ay gacmahooda ku samaysteen oo dhoobay dhagax ka sameeyeen aan anigu ilaahay ka dhiganay ma wallahi maxaa waxa igu wataani attakhidhu min dunihi alaha wali muxuu yiri ay yuridni arrahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhuni alihadaas asnaamta ee dhagaxada ee dhoobada ee alwaaxda ee khashabka ay dadku gacantooda ku samaysteen waxa iga tari karaan waxa ii nafcin karaan haduu rabbigay durri iyo dhibaato ila doono waxba igama qaban karaan ima gargaari karaan ima badbaadin karaan maxay ii tarayaan marka uu ilaahay uga dhiganaya oo rabbiga ugu kufrinaya wala yunqiduni inni hadan saasiya law idan la fi dhalalin mubin baadi had baan ku sugnay markaan rabbigaygii abuuray ee aanu jirin ee haysiiyay إنسان يقدر إن دي دقة يمقل يسيء إنه لا شيء بيجي دون كإيد شيء مركان كوكو فريو أو أنا عابده
dhagxaan iyo dhoobo iyo waxaan qiimo lahayn dee baadi baan ku sugnahay innii idan la fii dalaalin mubiin ka bacdina waa bacdaystay wuxuu yidhi innii aamantu birabbikum fasmacuunii wardad yahow i dhagaysta oo qowlkayga dhagaysta anigu rabbigayna ah baan rumeeyey ee si fiican i dhagaysta innii aamantu birabbikum fasmacuunii i dhagaysta arrintaasina arrin mamnuuca ay ahayd arrin aan la ogolayn bay ahayd haddaba wuxuu yidhi dhegihiinna fura waxaydan jeclayn baan idiin sheegayaa oo waa maxay anigu ilaahay baan rumeeyey rabbigay iyo rabbigiin baan rumeeyey mar alla markuu saa yidhi bay dileen kow waa dileen ayagu waa dileen soo maaha ilaahayna jannadu horay ka geliyey markaa maba qur'aanku maba kala faslinine innii aamantu birabbikum fasmacuunii maxaa ku xiga qiila dkhuli ljanna sidaadii ay u dileen jannada horay ka gal baa la yidhi haba sugin inta dadka la soo bacdinayo la soo noolaynayo aakhira dadka la soo noolaynayo haba sugin imikaba jannada iska sii galoonad ka war oo shuhadada dadka shuhadada ah ilaahay dartii u dhinta iyaga waa la sii horumariyaa oo waa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu laba aayadood aayadna ilaahay waaba nahiyey walaa taquluu ha oranina liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaat ha ku oranina bal axyaan waa nool yihiin ilaahay baa oranaya walaakin laa tashcuruun idinkaan dareemayn idinku haddaynan dareemaynin dee idinkeedila jirtaa laakiin waa nool yihiin yaa odhanaya الله آيات كانوا في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هأم ليننا الليل كوا إلهي درتيس لود لي إن أمواتهم سيرة تتكاك عليهم ما بل أحياء ونولهم ولب عند ربهم بقى يرزقون لا رزقاء على شيء هل كاسيبا أيبا كعنتين عند رب العالمين فرحين بما آتاهم الله من فضله حديثه في صحيح مسلم وغيره هنا أيضا كسو دقي سبب كذا واضحين يسام وموجين يسينا وحبها الله رب العالمين شهددي إلهي درتيس قلمتي ونولي أرواح دودنا وحل قليل maadaama jismigoodii oo qaanuunka ilaahay uu u dejiyey ee dadka loo sameeyey aan la dhaafin karin ilaahay qaanuun buu ugu talagalay adduunkan u sameeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala asbaab buu sameeyey asbaabta daahirka ah ee insaanku inuu dhasho calooshooyadii ka soo baxo weynaado hadhowna dhinto hadhowna ciidda lagu aaso suu doona markaa ha noqdo markii la aaso marka qaanuunka isaga jismigoodii adduunka ay ku haysteen waa la iska daayey على هذا القانون لكن أرواح ذي روح ذي فإلهي وحو دحقلي حواصل طيور خضر شمبرا على عقاره قرقروح بدنه إلهي وقروح ذو كور هيو فإلهي سبحانه وتعالى لقنت ذا يلي أرواح ذي طب إذا جنة لوشي داي ترحى في الجنة جنة ذي بكجران بعد إلا الإله روح ذا إنسان كان صدون وكذا جل جلاله جعلها فيما شاء في غالب ما شاء كبعدين إلهي بالله هذي أو كفاح بقوله هذي مواسدة ولا ما هذي نتوس بقوله هذي حيل دوما ذي أنا قدرت يوصل لنتيو وحي ويديسته ما حيكون له المتقن حي ويديسته المقرن إنسان وحيده ربنا ربي قالوا وحن ويديسنينا دب الدنيا ذي موعلي الله أكبر وما دون جعل بها ما يا وحرمنا مرنا بعدين عن هذنا أنا قدرت أوصل لمنه مرنا بعد إن وناق يا كرامة يا خير كأنه هلا وحدونينا نقوم في المركلية مرنا بعدين أنا قدرت هذنا أنا أوصل لمنه ربنا أرجعنا مرنا علي هي
لنقتل في سبيلك مرة أخرى إنان أنا قدرت أوصل لمن ما هنا غيركي عيالك يسوفرنه ما يا وكرم ذا يركي إلهي مركب حكويري إني كتبت هذا الباقي هر مريو وإن كي للهوى معنى هذا لكن هذا الباقي قول باقي هر مريو نفع دونك كتبتي إن أنا دب أسوع علينين باهري أن أقري معناها يعني أردها الذين ما سمينا يوي مركز هذا بإله يوم هذا أرد صاحي نجد شيء ولا لهن أدونك أنو كان من نرش وناكسين كجرنو نغشاكي ده إله سود جاهدا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله أكبر